هذا علنا ما هذا علنت هذا الشيء إن وقت كان حساسية وقت كان حالده أي كالعاداتي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا أي كالعاداتي كوحها أرجع oo awal Soomaali ay u haysatay in cadow Soomaali oo ka dhaxeeyay in kastoo ay yihiin haddana inay gees ka gees isaga soo gurmanayaan hal deegaan ku soo aruurayaan meeshaas ma dahab baa laga qodaa ma buuro dahab ku yaala meeshaas ma waxa yaala waxaan deegaamada kale oolin in baalweyntan ay garatay shirkan qiimaha leh waqtiga sidaas in la qabto oo waliba looga arinsado sidii la isaga celin lahaa ma ahan in looga arinsanayo sidii looga carari lahaa ama loo gabaad looga geli lahaa ama la isaga badbaadin lahaa laakiin in la yiraahdo la dagaalan oo tabeelahan lagu qoro sidii khawaarijta loola dagaalami lahaaba shirweynahaani ka arinsanaya arrin bogaadin mudan weeye waa bogaadinaynaa odayaashuna waa mahadsan yihiin bulshadaad hormuud u tihiin waxaa la dhibaataynayaa bulshadii aada odayaasha u ahaydeen ah oo ina fiirsan karin kuwii wiilka 13 sano jira laga qaadanayo gabdhihii oo niman ajnabi ah aan la garanayn ay iska qaadanayaan dadkii oo lagu xadgudbayo xurmadoodii iyo karaamadoodii dadkii odayaasha iyo duubabka u haydeen inaan la fiirsan karin shirkan oo qabateen mar kale aan idinkaga mahad celinayna anagoo xukuumadii afkeeda ku hadlayna waxaan bogaadinaynaa qodobada iyo go'aamada shirkan lagu gaaro ka soo baxay waa la akhrin doonaa oo ujeedka siduu ka muuqato la dagaalan badankooda ama kulligoodba ah sidii la isaga celin lahaa nimankan horarka ah oo tabarta badan aan hayn oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe yaalla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka Afrika oo dhan aysan lahayn oo lacag 10 bilyan oo lacag ay ku baxayso in cadaalad agtiisa laga sameeyo wax sahlan maaha in shidaalkii dalka Soomaaliya qodistiisii laga bilaabay deegaamadaas in dekad iyo aeroboorro waaweyn loo asteeyay inay deegaamadaas tagaan awal haday xamar iyo meelahan dadka iyo meelaha ku weerari jireen si mashaariicdaas horumarineed oo mustaqbalka ummadan wax weyn ka bedelaya shaqooyin abuuraya magac keenaya Soomaaliya oo dhan maaragtay xudun ay u noqonayaan si ay uga hortagaan nimanka siyaasiyiin way nimanka waxaad leedahay markii qaarkood beel bay la dirsan yihiin awalna halkan 10,000 oo dad oo hal doorkii dadkaan ahaa oo generaalada oo wasiirada ka soo jeesteen waxay ka soo jeesteen culimadii waxay ka soo jeesteen odayaashii waxay ka soo jeesteen bulshada caadiga ahayd haddana horumarkii iyo dhaqdhaqaaq yaraa oo dawladdu ay tiri bal xaggan aan u dhaqaaqno meelahaas sahankii la sameeyay ku fiicnaaday ayay yiraahdeen haddana waan ka hor imaanaynaa nima dagaalsan oo adduun iyo aakhiraba ku dagaalsan way ardaybay waxay ku bartilmaameedsadeen meeshaan la hargaha iyo saamaha oo gubtay 2011kii tashidaal wiilal iyo gabdho yaryar ah waxay yiraahdeen askar baa lagu qoriyay meesha jaamacadii 2009kii aakhirkeedii baa madaxdii wasaaradii tacliinta iyo wasaaradihii kale yiraahdeen arday qalin jabinays baan hotel Shamow ugu soo xiraynaa xaflad sidaan oo kala waa ka taqaluseen cadawgii ugu weynaa baan ka taqalusnay yiraahdeen
cumar xaashi iyo odayaashii ambaasadoorkii iyo allaha u naxariistee oo booqasho ku jooga hotel degan beledweyne ku yaalla waxay ku dhigeen waa la ogaa. iska soo wadilaayo zoobe 2 iyo 1 keen meeshaas meydkeenna waan sidan jirnay, allaha u naxariistay ahayd. waxayna taasi ku ahayd kala firir. ganacsatadana dee si la rabaa loo baadi jiray in ra'yi midaysan uusan jirin ayaa wiil hargeysa ka soo cararay intana dhex yimid fidnadaas ummadda ku dhex beeray oo diin nooga dhiga wixii culimo aan haysanay, wixii sheekh noo joogay, wixii maaragtay doctor aan lahayn, inta halkaa noo yimid buu diin u tusiyey ilmihii iyo dadkii ku baabi'iyey dadkeennii. aniga waxaan qabaa tala nama seegin. shirkaanna maanta waxaan aaminsanahay inuu noqdo shir shaqa ka dambayso, uusan noqon shir la isugu yimid meediyaha laga soo daahiray halkaasna lagu joojiyey. shir shaqa ka dambayso, bartilmaameed shabaab jubbooyinka meel kasta waa isaga yimaadeen. gobollada Soomaaliya wiilal yaryar waa aragteen oo gabyaayaa ahaayo maaragtay halka inta calaamo kusoo dhegsaday maalin dhaweyd waa jihaadeena cadow aan la jihaadeena waraadi oo cadow xaga jooga. Faysal Cali Waraabe waa arkaysay shalay wuxuu qorayay xamar bisha soo socotay bisha ku xigta waa hambalyeynaya shabaab waa Allahu akbar Allahu akbar. al-shabaab waa guuleysteen xamar bay qabsadeen. waa nin weyn meel buu ku nool yahay. wiilkiisiina ISIS Xuseen mid la yiraahdo ISIS dagaal Syria lagu dilay Mareykanka duqeeyay wiilku asagu dhalay caruurtiisa inta dayacay asagina hadda al-shabaab buu ku biiray isma oga laakiin ama uu is ogyahay ninka saa sameynaya nin weyn waxaas nin seedigeena maanta yimid xamar labada control baa defense leh wuu jiraa iska yiri hadduu yimid hatta xamar ma arkin. sanooyin ka hor hoteeladay teleefon u soo diri jireen. 2 sano ka hor 3 sano ka hor hotel wax lagu qaban kara ma leh. hotel la nidaamiyey oo al-shabaab laga fogeeyey ayuu program ku qabsaday. labada control baa la fadhiyaa xataa weli magaalada gudaha uma gelin. aadan iyo walba iyo waxa la isku haystaa xardheere iyo dhul ilaahay baa la isku haystaa. wuu ogyahay ninkan deegaankan wuu yaqaana meesha la isku haystaa waa yaqaana. hadday xasan sheekh ay tahay inuu mucaarado madaxweynaha siyaabo kale loo mucaaradi karaa, laakiin dadkan markii la maaweelin jiray, markii beenta loo sheegi jiray, nin intuu iska yimaado boorso wata hadda goor baa boorso wata nin kale inta iska yimaado waxaa rabtid isku sheega annaguna aan kaa daba meerino waa dhammaatay. odayga ku dheeraan mayo waa seedigan intaas asaguna ha ku ekeeyo meel dambe. laakiin haddaad hadashay maxaa laygu jawaabay suurtagal maaha. haddaad soo gudubtid adigu xuduudaadii, haddaad dhiigga ciidanka iyo xoolaha la gashay aada cayaar ka dhigtid oo aysan qiimo kuula fadhin wiilka aadaya baal ku dhimanaya, oo aysan qiimo kugu fadhin midka ceel dheer dhufayska uga jira, oo aysan qiimo kugu fadhin midka halkaa inta ka dhaqaaqay 3 sano ka hor tegay xarar dheera maanta dhufayska ugu jira. haddii aad inkirtid annaguna waa inkiraynaa, waa ku inkiraynaa, annaguna waa kuu jawaabaynaa. intaas asagana waa qasab ciddii soo faragelisa amniga in wax la yiraahdo qofku raba ahaado. sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur baaban u jawaabi jiray. ma aan hadda qabiil nagama ahan ama hebel iyo hebel nagama ahan. ninkii amniga siyaasadeeya waa loo jawaabaya. waxaana ka rabnaa maanta waxaan ka rabnay ra-iisul wasaaraheenna hore inuu yidhaahdo safka hore istaagaya ciidamadan ag istaagaya.
maanta inuu shabaab inta noo soo horkaco yiraahdo labada control baa keenaya wallahi kama nafilin waxaan ku soo gunaanayaa ficil aan ka dambaysiino hadalkeena ficil aan ka dambaysiino hadalkeena waa bogaadinaynaa midda kale ninka Cumar Xaashi dilay oo mujaahid ahaa oo wasiir ahaa oo laqanye iyo dadkii tirada badan la dilay oo al-shabaabka oo khawaarijta oo laga yaabo asaga inuu ku reer yahay marka gacan uu soo galo waa khawaarijin qabiil ma leh maanta ma go'aansanaa odayaal ma nagu qorteen meeshaas ninkii khawaarij gala nagu qabiil maahan nagu Soomaali maahan nagu diin maahan waa khawaarij baa la kaas meeshii lagu qabto wixii shaqaahu yaalla laga guto yaan la garabsan waxaan maqlaynaa meelaha qaarkood in dadkii maaragtay loo kala beer laxa waayo anuu ixiga marka la dilaayo way anuu ixiga iga wareegin la yiraahdo way laakiin anuu ixiga iida ma jirto taas marka waa khawaarij ciduu rababa ha ahaado kala socmalahan waxaan hambalyeynaa marka South West ciidanka dawladda iyo ciidanka daraawiishta guusha maanta ay gaareen waxaan hambalyeynaa guusha kuwa ISIS ee bariga Soomaaliya dagaalka lagula jiro waa hambalyeynaa khawaarij hay male noocay rabto ha noqoto gobolkay joogtana dhibaatay ku tahay Soomaaliya oo dhan haddii hal gobol joogto haddii ummadda ay u shirto oo beeshaan ay u shirto in la iska celiyana khatar Soomaaliya haysay u shiraysaaye shirkan waa in la bogaadiyaa beelaha Soomaaliyeed oo kalena waxaan ugu yeeraynaa waa khatar Soomaaliya oo dhan u taalay haddii beeli garato inay hubka qaadato iska celiso waa in lagu taageeraa la bogaadiyaa kuwa kalena waa inay sidoo kale sameeyaan halkan rag noo jooga jira oo waayahan oo dhan xalana noo jooga oo ayaguna isku jira qaarna halganka socda taageero iyo garab u yihiin oo diyaarado iyo ciidanka taakuleyntooda ay bixinayaan waa bogaadinaynaa dawladahaas kuwa kale oo mushaar u soo doontay oo iyaguna faafiya been ayaa jirta oo dhahaya shabaabkii dabeecadii bay iska bedeleen sida dawladnimo ay u dhaqmayaan hadda dadkii dilimayaan ma dilayaan dadkii sidii dawladnimo ay u dhaqmayaan waa fiican yihiin cadaadiskii waa joojiyeen cunaqabatayntii waa qaadeen ninka atmista hadda hogaamiya ninkii horema ku-xigeenkii oo hadda sii haya ayaa ka mid ah kolley tallaabo ayay dawladdu ka qaadi doontaa mana jirto oo ribooro gudbiyay UN Security Council-ka u gudbiyay shalaydaana u dambeysay ribooro uu qoray aan arkayn wasaaradda arrimaha dawladda gacanta ku haysay sida aan u leenahay ragga anaga nala dhashay oo ra'iisul wasaarayaasheena ama madaxdeena hore saan isaga celinayno haddii nin ajnabi afka nala soo galana waa iska celinaynaa isagana loo aamusi maayo hadduu been faafinayo mas-uuliyaddii Soomaaliya mas-uuliyaddii lagu dhiibay inuu halkan ciidamada nabad ilaalinta ay qayb ka noqdaan dagaalkaas haddii uu halkaa inta fariista asagii dacayad bilaabo isagana dee waa la iska celinayaaye loo aamusi maayo marka waxaan kusoo gabagabeynayaa in general khawaarijta dagaal baan la gelaynaa kuwa afkooda ku hadla ama kelimad taageero u ah yiraahdana dagaal baa la gelayaa waa maasantii